adduunyadan aad ku nooshahay meel lagu nastay inaanay ahay, meel raaxa maaha. waa meel ilaahay uu ugu talagalay welibana qofka mu'minka ah ilaahay uu ugu talagalay inay u noqoto cidhiidhi. ilaahay wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad. insaanka waxaanu ka abuurnay fii kabad ay fii mashaqa, waxa weeye dhib. waa aragteenoo dee haddaad masaariiftaada la soo baxayso wax miiska kuu saarani ma jiraan. tacab iyo saamalayl iyo kallahaad iyo badaha in loo fuulo wakhti badan lagu bixiyo, tacab baa lagula soo baxaya. ubad haddaad u baahato tacab baa ka horreeya, caafimaad haddaad u baahato tacab baa ka horreeya, inaad is ilaaliso. noloshoo dhan baa waxay ka samaysan tahay fii kabad ay fii mashaqa ayay ka samaysan tahay. welibana xilliba xilliguu ka dambeeya way sii caddaanaysa. waa aragteenoo waxa weeye waxyaabaha naftu jeceshahay oo dhan baa hadda laynooga digaya. oo macaankii ha layska ilaaliyo, caafimaadkaagu waxyeelaya. baruurtii ha layska ilaaliyo. naftu waxay iska jeceshahay inay fadhido nasato. waxaa la yidhi dawadaadu waxay ku jirtaa inaad socoto. socodkii waa lagu daalaya. waxaa la inaad socotaad ku dawoobaysaa, waa tacab. laakiin haddaad iska fadhiisato, cunto aad cabto, macaanno iyo xanuunnaa laga yaabaa inay kugu dhacaan. noloshu waa tacab, waa cidhiidhi. qadiyadda labaad waxa sii weheliya adduunyadanaynu ku nool lahay qofku inaan loo joogtaynayn xaalad wanaagsan. yataqallab min xaalin ilaa xaal, hal xaalad oo wanaagsan oo joogtaa qofna heli maayo. ilaahay wuxuu idhi watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, yowmun nusaa wa yowmun nusar, yowmun lak wa yowmun calayk. maalin adaa leh, jaanis bay kuu tahay. waa maalin aad caafimaad qabto, waa maalin noloshu ku wanaagsan tahay, waa maalin ay isugu kaa toosan tahay, maalinna waa kugu jiiftaa. adduunyadu hadday maalin kaa qosliso, maalin kalena way kaa oohinaysaa. maa adxakat ilaa wa abkat. hadday kaa qosliso waxaa hortilaa inay kaa oohinayso. walaa sarat ilaa wa asaa'at. hadday ku farax gelisa maalmay ku naxdin gelinaysaa. xaaladda adduunyada saasa waana wax cid waliba og tahay. maalin dhoweyd nin asxaabta ka midoo aanu wada shaqayno ayaa subaxii baanu u taaniyadayno wiilkii ugu horreeyey baa u dhashay. waa wiilkii curad weeye. farxaddiisa waynu fahmayna. horta goblonnimaad kaga baxda, wiilkana waa la sii jeceliya, wiil buu ku curd. gelinkii hore waannu u taaniyadayna, gelinkii dambena ayaydii hooyo ayaa dhimatay, waannu u tacsiyadayn. farxaddiisu ma dhammaystirmin. gelinkii horena waa faraxsanaa, laakiin farxaddii may joogina saacada ka bacdi waxaa yimi murugaa timi. adduunyada xaalkeedu waa sidaas. sidaa awgeed baa alla subxaanahu wa tacaala jannada markuu ammaanayo, waxa jannada lagu ammaano waxaa ka mid a inaan imtixaan iyo musiibo iyo belo jannada aanay kugu imanayn. walwal iyo walbahaar, diiqad iyo cidhiidhi, daal iyo dhibaato inaan jannada aan laga helayn. laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi. jannada laguma daalo, wax cidhiidhiyo ku dhibaa jannada kuugu iman maayaan, lagana bixi maayo. oo waa lagu waarayaa. oo walwaliyo cidhiidhi ka weyni ma jiro intaad wanaag dhex gashay lagu yidhaahdo waxaad haysataa muddada intaa leeg, maxaa ku xiga? waad ka dhex baxaysa.
adduunyada xaalkeeda saas laakiin jannada marka la doonaya in la ammaano walahum fiiha naciimun muqiim khaalidiina fiiha abada waxaa jannada aad loogu ammaanaa walwal iyo diiqad iyo cidhiidhi inaanu ku sugnayn iyo qofka galaa weligii inaanu ka baxayn maanta dee xilalkaa loo ordayo waxaa ugu weyn dee dalkan inaad madaxweyne ka noqoto ayaa ugu weyn xil adduunyo la qabto soo saama isagaa ugu weyn uu ugu fadli badan yahay ka hadli mayno ugu khayr badan yahay ka hadli mayno laakiin wax dadku ay u ordaan waa ka ugu weyn dee waa aragtayna waa muddaysan yahay xilli buu ku xidhan yahay waa muddaysan yahay inta horena xil oo dhanna waa saas sanadka hore iyo labada horena waxaa la leeyahay uu la qabsanaya waa cusub yahay inta dambena walwalkii wakhtigii dhammaanaya baa la gelaya ama de iskuul maamulaha ka noqdo ama jaamacad ama shirkad ama dal ama gobol marka wixii loo muddeeyo u dhadhami mayso waayo wuxuu eegayaa wakhtigii buu tirinayaayo wax la tiriyeyna de waa wax kooban wey waa waxaad isaga kooban waa maalmaha hadda isu tegaya wakhtiguna waa dhammaanaya qofku muxuu ku nastaa muxuu ku raaxaystaa ishiisu waxay ku maqan tahay maadaa bacdu war 3 sanee la ii magacaaba hadday dhammaato maxaa ku xiga tolo xaggaan ku dambayn doonaa ma lay soo celin doonaa ma lay jadiidin doonaa ma la kordhinayaa walwal baa gelaya adduunyada xaalkeeda noocaas haddii lagu siiyo shaqo wanaagsan oo aad in badan ku taamaysay dee shaqada dad baa kuu igmaday oo kuu dirsaday oo ku maamula oo iska leh intaad sii wadi doontaa qofkii wuxuu qaadayaa walwal ama subax inta layska kaasannifo lagu yidhahdaa fasax baad bishu hadday dhammaataa soo shaqo tegi oo waxaagu halkaa ku go'a adduunyada walwalladaasi ma dhammaadaan xaaladdan aad ku sugan tahay way isku toosan tahay laakiin waxaad ka baqaysaa waxa soo socda sidaa awgeed baa alle subxaanahu wa tacaala jannada wuxuu ku tilmaamay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wax ka tegayna ka murugoon maayaan wax soo socdana ka biqi maayaan waa labada adduunyada aynu la ildarannahay qofna wuxuu la tacaalayaa dhibkii uu soo maray xaalkan uu hadda ku sugaya waa wanaagsan yihin laakiin wuxuu xasuusanayaa dhibaatooyin soo maray ubad laga qaaday waalid laga qaaday masaa'ib kaloo ku timi xaalado qallafsana uu soo maray markuu kuwaa xasuusto waxa weeye murugo iyo cidhiidh iyo diiqad baa gelaysa xaaladdan uu ku sugan yahay iyadoo ay wanaagsan tahay buu wuxuu ka baqayaa mustaqbalka talo maxay ku dambayn doontaa mustaqbalku muxuu noqon doonaa sidan ma lagu waari doonaa ma sii socon doontaa horta ogow adduunyadan gebigeeduba xaalkeedu inuu sidaa yahay qaacidada labaad almru kulluhu lilaah qul ina alamra kullahu lilaah waxaad ogsoonaataa waxa kownkan ka dhacaya dhammaanteed xagga alle inuu ka yimi haddii wanaag kugu yimaado oo ilaahay uu ku siiyana waa min allaah haddii imtixaan kugu yimaadana waa min allaah wuxuu leeyahy nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ummaddu hadday isu tagto dhammaanteed si ay wax kuu anfacaan oo waxtar ay kuu siiyaan waxba kugu tari maayaan wixii ilaahay uu kuu qoray mooyaane ummaddu hadday isu timaaddo gaal iyo muslim si ay kuu dhibaateeyaan dhib ilaahay aanu kuu qorin ku dhibi kari maayaan oo awoodu ma laha halkaana waxaad ka qaadanaysaa musiibo kastoo kugu timaadda inay tahay min allaah ilaahay xaggiisa inay ka timi qaacidadaana maskaxdaad ku haynaysaa ilaahay muxuu imtixaana
maxay musiibadani igu timi maxay saaxiibada igu dhici weydi maxay dadka iga agdhow ugu dhici weyda aniga igu dhacday tan noocaasa xikmad buu alla subxaanahu wa tacaala ka leeyahay qodobada dambaynu ku tilmaamayno qaacidada saddexaad waa inaad ogsoonaataa kullu karbin macahu faraj wa kullu cusrin macahu yusr dhib kastoo yimaada wixii faydayay baa la socda culays kastoo kugu yimaada waxa la socda fududayntiisii baa la socota ilaahay waxau idhi fa inna maca alcusri yusra culays kastoo kugu yimaada fudayd baa la socda hadda lama odhan fa inna bacda alcusri yusra lama odhan culaysku markuu kugu yimaado waxa ka daba imanaya lama odhan ee markuu culaysku kugu imanayo fududayntiisiina waa la socotaa furayaasheedii inaad doontaa lagaa doonaya wuxuu kaloo leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waclam ana الnasra maca الصabr wa ana alfaraja maca alkarb guushu waxay la socotaa in la sabro faydkuna iyo farajkuna wuxuu la socdaa dhibka ayuu la socdaa idan waa inaad ogaataa dhibaato kastoo kugu timaada wixii faydayeyna inuu la socdo laakiin la doonayo waddadeeda inaad u marto lagaa doonayo qawaaciddaa markaynu isla fahanno waxaynu u gudbaynaa furayaashaynu u gudbaynaa furaha koowaad ee faydka iyo farajka keena waa athiqatu billaahi caza wajal ilaahay inaad ku kalsoonaato xusnu danni bihi ilaahay inaad malaha ku wanaajiso wax wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala inaad ka filato oo dhibaatadii kugu timi inaad u dareento inay tahay khayr iyo wanaag ilaahay uu kula doonay oo musiibooyinka waxyaabaha keena waxaa ka mida gaabis aad samaysay wamaa asaabakum min musiiba fabima kasabat aydiikum dhibaatooyinka idinku dhacaya ka bulsho ahaan iyo dhibaatada kugu imanaysa ka shakhsi ahaan adiga kugu imanaysa waa waxaad kasbatay oo adigu aad samaysay baa ilaahay leeyihi wayacfu can kaiir ilaahay in badanna waa inoo cafinayaa oo waa inoo dhaafayaa oo hadduu inagula xisaabtamayo waxaynu samaynayno taaka taako waxa weeye cidiba ma soo hadheen cidina ma badbaadeen walow yu'aakhidu allaahu annaasa bidulmihim maa taraka calaa dahriha min daabba dulmiga aynu gelayna ilaahay hadduu inoo qabanayo oo khaladka aad gashaba ciqaabtiisa lagu soo dadejinayo cidina adduunyada korkeeda kumay hadheen buu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala idan horta waa inaad ogsoonaataa taabashada lagu taabtay in alla subxaanahu wa tacaala uu doonaya xaggiisa inaad u soo noqoto in lagu baraarujinayo in lagu xasuusinayo in ilaahay lagugu xidhayo in waxa weeye aad xasuusanaysa dunuub aad samaysay kadibna aad ka toobadkeenayso taana dareenkeedu wuxuu ku imanayaa hadba qofka xaalkiisu siduu yahay raggii salafka ahaa waxay odhan jireen ee dadaalka badnaa ee cibaadada badnaa wuxuu odhanayay maalinta aan dembi galo waxaan ka gartaa dameerkaa aan fuushanahay guriga markaan gaadhana islaantaan ka gartaa khalad haddaan galo waayo dembigiisaan badnay innagu daban iska dhex dabbaalannaa dabeedna masaa'ibtu markay iska daba timaaddo in badan oo ka midii waxa weeye waxa laga yaabaa inaanu garan halka looga yimi iyo gaabiska uu ku sugan yahay inaanu dareemin baa laga yaabaa wuxuu idhi guriga markaan tagana xaaskaa igu kacda islaantii oo cadhaysan oo isku buuqsan oo mayl laga haysta aanan fahmayn ayaan guriga ugu tagaa waxaaba laga yaabaa ilaa maanta qadana kumaanaan samaynay naga tag dabeedna wuxuu yidhaahdaa waxaan ogaadaa khalad iyo gaabis maantaan alla ka galay in alla subxaanahu wa tacaala uu igu soo jeediyey gaadhigii baabadda istaadhmi waayey
cilada ku yimaadeen makiinadii baa qaraxday gubatay waxyaabo kale waxa laga yaabaa hawsha ama culayska kugu yimi inuu yahay gaabis xaggaaga ka yimi taasina ay tahay ilaahay inuu kugu dambi dhaafayo mar haddii dembigii lagu qabtay oo lagugu ciqaabay adduunyada taa macnaheedu waxay tahay kafaara gud bay kuu tahay sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu qofku ilaahay wanaag la doono uu taabtaa waa la imtixaanaa waxbaa la gaadhsiiyaa imtixaannaa ku yimaada waa qofka ilaahay uu wanaag la doonay ilaahay wuu imtixaamaa waayo imtixaankaa ku yimi ilaahay darajooyin buu kor ugu qaadaa dembiyana waa loogu dhaafaa musiibadaa ku dhacday kuwa ka waaweynna waa lagaga celiyaa hadduu de ilaahay u soo noqdona alla subxaanahu wa tacaala kor buu u qaadaa mansiladiisa iyo darajadiisa idan musiibadiiba waxay isu beddeshay wanaag iyo khayr bay isu beddeshay man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu taa waxa sii caddaynaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaahi wuxuu ka dhigan yahay sida zarca oo kale dalagga oo kale dhirta khudaartae aan waaweynayn ee aan lahayn dhudhunka aan lahayn muddo badanna aan jirayn mu'minku kaasoo kaleu la mid yahay tufayi'uha ariixu mara wa tacdiluhu mara dabaysha ku soo dhacda marna way seexinaysaa marna way soo kicinaysaa wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wamahalu lmunaafiqi kaalarza qofka munaafiqa ahina gaalkiina waa la mid waa sida geedkii weynaa oo kale siduu u taagan yahay xataa yakuuna injicaafuhaa mara waaxida ilaa hal mar siduu u taagnaa ayuu hal mar dhacaya taa macnaheedu waa maxay wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kadalika almu'minu yukafau bilbalaa qofka mu'minkaahi waa sidaasoo kale waxaa lagu gedgedinayaa imtixaanooyin xaalka muslimkaasaas waa lagu maydhayaa waa lagu nadiifinayaa ilaahay baa lagu xidhayaa waa qof ilaahay khayr la doonay qofka la taabanayo la imtixaamayo laakiin munaafiqa iyo gaalka sida loogu nicmaynayo ee uu isu leeyahay waad u raaxaysanaysaa ayaa hal mar nafta laga qabanaya dabeedna wuxuu gelayaa cadaab weligiiba uu ku waaro taa macnaheedu ma aha qofka mu'minkaahi inuu dalbado ibtilooyin iyo imtixaan oo hadduu dadaalo ilaahay uu isku xidho oo aan la imtixaamin oo xaalkiisa la ysugu toosiiyey waa fadlun min allah waa fadli iyo gallad alla uu siiyey weeye laakiin waxaynu ka hadlaynaa ka imtixaanku ku dhacay inuu dareemo alla subxaanahu wa tacaala inuu wanaag la doonay xadiid kale wuxuu tilmaamayey maalinta qiyaame waxaa loo qaybsamayaa ahlu caafiyatin wa ahlu ibtilaa kuwa adduunyada lagu dhibay oo lagu imtixaamay cidhiidhi badani soo wajahay iyo kuwa adduunyada caafiyo iyo caafimaad iyo xaalad wanaagsan ku noolaa xisaabtii baa la gelayaa ahlulcaafiya kuwii badqabka adduunyada ku joogay markay arkaan ahlulbalaa waxa ajaree la siinayo waxay tamaninayaan oo jeclaysanayaan markay adduunyada joogeen in la imtixaami lahaa oo imtixaanooyin ku iman lahaayeen laakiin waa marka aakhiro la tago ee la arka ajarka la qaybinayo laakiin hadda saacaddan aad joogto balaha saadsan nabigu waa inooga diga calayhi salaatu wasalaam qofku inuu dhibaato u yeedho bal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii jihaadka la gelayay laa tatamanaw liqaa'a alcaduw gaalada inaad dagaal la gashaan oo la kulantaan ha jeclaysanina ha ku farxina waayo waa imtixaan waa lagu xanuujinaya in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuun
lugahaagii baa la jaraya, gacmahaagii baa la jaraya, naftii baa lagaa qabanaya, dhaawacyo waaweyn baa lagu soo gaadhsiinaya. waa laga yaabaa inaad baqdo oo aad daba jeediso oo dembi weyn aad ku dhacdo. waa imtixaan. haddaad sabirtana dee wax weyni ku soo gaadhaan ama aad saa ku socoto. mar walbana qofku inuu sii noolaado cibaadaysto ayaa ka khayr badan xataa inuu shahiid noqdo. oo ninka shahiid noqonaya iyo ka dambeeye cibaadaysanaya cimrigiisa la dheereeyey waxaa ajar badan oo khayr badan kaa ramadaanta iyo salaadaha badan sanawaadka badan tukanayay baa ka khayr badan sida xadiistu inoo sheegayso. marka musiibo looma yeedho, laakiin ogow haddii ay kugu timaado alla subxaanahu wa tacaala inuu wanaag kula doonay. sidaa awgeed ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma alamhalu falamhal. dadka waxaa ugu imtixaan badan oo adduunyada lagu dhibaya ambiyada, dabeedna waxaa ku soo xiga xagga imtixaanka iyo ibtilada dadka ku soo xiga, dabeedna kuwa ku sii xiga. kuwa ugu liita, ugu dembiga badan, ugu gaabiska badan waa kuwa ugu imtixaanka iyo ibtilada yar bay noqonayaan. kaasi waa miftaax. wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala xadiisu lqudsiga, ana cinda xusni danni cabdii bi. anigu addoonku waxa uu iga fisho ayaan u samaynayaa. hadduu wanaag iga fishana wanaag baan siinayaa, hadduu dhibaato iga fishana dhibaato unbuu iga helayaa. falyadunna bimaa shaa, wuxuu doonaha iga fisho. idan marka musiibadu kugu timaado inaad wax wanaagsan alla ka filato oo qofku uu yidhaahdo ilaahay caafimaad buu siinayaa, waan ka baxayaa, faraj baa imanaya, waa layga faydayaa, xaalkaygu sidan waa ka wanaagsanaanaya, ku waari maayo, waan ka baxayaa. iyada lafteedu waxay furo weyn u tahay, waana qodobka koowaad in alla subxaanahu wa tacaala dhibkaa kaa saaro. waayo ilaahay baa kuu ballanqaaday waxa aad ka filato inuu ku siinayo. laakiin qofku hadduu sida kale u dhigo uu yidhaahdo way ka sii daraysaa, tani waa sahal, mid ka weyn baa soo socota, tan laga kici maayo, waxa weeye de xaalkiisu saasuu noqonaya. odaygii nebigu soo booqda calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu ducadii laynoo jideeyey buu ku dul akhriyey. wuxuu idhi laa ba'sa tahuurun in shaa allah. dhibi ma jirto, bala ma jirto, waad ka caafimaadaysaa in shaa allahu tacaala ayuu nebigu ku yidhi. odaygii baa soo booday. wuxuu idhi kalla, sidaa maaha buu ihi nebi maxamed, bal xummaa tafuur, waa xumad karkaraysa buui calaa shaykhin kabiir. oday weynna ku dhacday, nin dhallinyaraha maa, oday weyn ku dhacday, tusiiruhu alqubuur, xabaalahana geenaysa. nebigu wuxuu idhi haddaba waa iyada wey, sidii buu ku socday. ducadii nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu ka caafimaadayo. aamiin hadduu odhan lahaa waa ka kici lahaa, laakiin wuxuu qadiyaddii u bedelay inuu u sii socdo xabaalaha, uu sii socdo tii uu doonayey ilaahay uu ka filanayey, tii baa looga dhigay. miftaaxa labaad waa taqwa allaahi subxaanahu wa tacaala, in alle laga cabsado. waxaynu soo sheegnay ka dhibka keenay waa alle, ka faydayaana waa alle subxaanahu wa tacaala, ka adduunyadan iskale waa alle subxaanahu wa tacaala. alle subxaanahu wa tacaala haddii aad ka baqdo, wixii uu ku faray aad samayso, wixii uu kuu diidayna aad ka joogsato, ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday inuu dhibaatoo dhan kaa saarayo. waman yattaqi illaah yajcal lahu makhraja. qofka alle ka cabsada ilaahay faraj iyo meel badbaado ayuu ilaahay dhib kasta uu uga sameeyaa. waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra. ka alle subxaanahu wa tacaala ka baqa, wixii ku cuslaaday ee dhibay ee ku adkaaday ilaahay fududayn ayuu ilaahay u diyaariyaa oo u siiyaa. waa ballanqaad. alla ka cabsi baa adiga lagaa doonayaa. ilaahayna wuxuu ku xidhayoo shardi u ah oo uu kaga jawaabayaa shardigaas inuu kuu fududaynayo xaalkaaga iyo faraj inuu ku siinayo ayuu alla subxaanahu wa tacaala uu kuu ballanqaadaya.
furaha saddexaad waa التوكل على الله الله سبحانه وتعالى إلا tala saarto التوكل waxay macnihiisu waa الاعتماد على الله في دفع المضار وجلب المنافع ilaahay inaad u cuskato ula noqoto ula eerato inuu dhibka kaa qaado wanaagana kuu keeno xanuunka kaa qaado caafimaad uu ku siiyo faqriga kaa qaado kifaaye iyo hodantinimo uu kuugu bedelo imtixaanka uu kaa saaro badqab uu kuu saaro inaad alle subxaanahu wa tacaala la kaashato waman yatawakkal cala allah fahuwa eesh fahuwa xasbuh qofka ilaahay tala saarta ilaahay baa ku filan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la yidhi gaaladii baa isu kaa soo bahaystay oo kugu soo socda dabeedna wuxuu ku jawaabay xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa nugu filan mid la tala saartana ilaahay baa ugu wanaagsan nebi ibraahim baa yidhi calayhi salaam markii loo qoday god aad u weyn oo muddo la shidayey la diyaarinayey ayaa la soo dul istaajiyey iyadoo ciidan badan ay wadaan markuu arkay dabkii lagu tuurayo wax awoodaya wax xeeladana aanu lahayn wuxuu idhi xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan mid la tala saartana ilaahay baa ugu wanaagsan dabeedna dabkii muddada la shidayey baa ilaahay wuxuu ka dhigay qabow iyo badbaado alla subxaanahu wa tacaala uu ku bedelay waa kelmaddaa uu yidhi mu'minu aali fircawn ninkii waxa weeye fircawn qoyskiisa ahaa ee mu'minka ahaa ee islaamay markuu waaninayey welibana waanada uu ku kululeeyey boqorkii fircawn iyo ciidankiisii oo la filayo da in la ciqaabayo waxa uu idhi fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu wuxuu idhi waxaanaan idinku waaninaya dib baad ka xasuusan doontaan aakhiro taladaydana ilaahay baan u dhiibtay oo ilaahay baan tala saaranayaa oo wuxuu ii qoray mooyaane waxna igu samayn maysaan ilaahay waxa uu idhi fawaqaahu allah ilaahay wuxuu ka badbaadiyey sayi'aati maa makaruu xumaantii ay ku dhakarayeen baa ilaahay ka badbaadiyey ilaahay inaad tala saarato oo aad u tala saarato dhibkaa kugu dhacday inuu kaa faydo waa furo weyn oo waxa weeye dhibka lagaaga faydayo qodobka afraad waxyaabaha dhibka lagu faydo waxaa ka mida kahratu listigfaar istigfaarta in la badsado ilaahay dembi dhaaf in la weydiisto oo waxa weeye la badiyo istigfaartuna waa ilaahay dembi dhaaf in la weydiisto wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa wanaagsanaaday jannana ay u sugnaatay ninka maalinta qiyaame buuggiisa ka hela istigfaar badan ka hela ninkaasay janna u sugnaatay oo waxa weeye wanaag ugu sugnaaday istigfaartu aad bay u qiimo badanta waxaynu sheegnay masaa'ibta inugu imanaysa in badanoo ka mida waxa keenaya dembiye innagu aynu gallay dembiyada ilaahay dembidhaaf haddaad ka weydiisato oo dembigaasi uu keenay musiibooyinkaa uu keenay oo dembigii ilaahay uu kuu dembi dhaafo musiibadiina farajkeedii baa imanaya oo ilaahay waa kaa faydaya waxaad badsataa istigfaarta badso mid labaad baa u yimi wuxuu idhi ma dhalays baan ah waxaan ka cabanayaa ubad la'aan ubad baan u baahana istigfaarta badi buudi mid saddexaad baa u yimi wuxuu idhi beertaydii way qallash waxa weeye abaar baan ka cabanayaa iyo biyo la'aan istigfaarta badi buudi raggii la joogay baa waxay yidhaahdeen xaalado kala duwan iyo duruufo kala duwan bay sheegteen adiguna hal dawo iyo hal jawaabunbaad siisa wuxuu idhi waxaan siiyey tii alla uu ina siiyey faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara ilaahay dembi dhaaf weydiista yursil isamaa'a calaykum midraara ilaahay roobka waa idin shubaya wayumdidkum biamwaal haddaad faqiir ahaydna xoolaa lagu siinaya wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara
ilaahay wabiyaal iyo beero wanaagsanna waa idin siinaya. idan istighfaarta in la badiyaa waa fura weyn oo farajka keenaya. qodobka shanaad waa as-salaatu ama kathratu as-salaati cala al-habiib al-mustafa alayhi salatu wassalaam. qofku inuu badiyo nabi maxamed alayhi salatu wassalaam inuu ku saliyo, inuu u duceeyo. salliga la badiyo nabiga alayhi salatu wassalaam iyadana dhibkaa lagu faydaa. ubay ibn kacab markuu nabiga la hadlayay alayhi salatu wassalaam waxa uu ku yidhi nabi allow ducooyinka aan ducaysanayo maxaan kaa siiyaa? ma ku siiyaa 4 meeloodoo meel oo markaan ducaysanayo hal meelna salligaagaan ka dhigayaa, 3 kalena anaa ducaysanaya. wuxuu yidhi nabigu way wanaagsan tahay, laakiin haddaad ka badisana kuu sii wanaagsan. wuxuu yidhi haddaan ka dhiga 3 meeloodoo meel, 2na anigoo aan qaato danahay, midna adiga aan kuugu duceeyo. wuxuu yidhi nabigu waa wanaagsan tahay, laakiin haddaad ka sii badiso way ka sii wanaagsanta. wuxuu yidhi nabi maxamed oo haddaan kala bar ka dhigo oo nusna anigoo aan qaato ducadii, nusna adiga aan kugu salliyo kuu duceeyo, ila salligu waa duca nabiga inuu ducaynayn alayhi salaatu wassalaam. wuxuu yidhi nabigu alayhi salaatu wassalaam waa wax wanaagsan kala bar inaad siiso, haddaad ka badisana ka sii wanaagsan. wuxuu yidhi idan ajcalu laka salaatii kullaha yaa rasuula allah, ducadaydoo dhan baa nebi allow ku siinaya. nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wassalaam idan xilligaas tukfaa hammuk, waxa ku walwalgelinaya ilaahay baa kaaga fillaanaya. xanuun baa ku walwalgelinayay, ilaahay baa kaaga filan. faqri baa ku walwalgelinayay, ilaahay baa kaaga filan. ubad la'aan baa ku walwalgelinaysa, ilaahay baa kaaga filan. oo macnaheedu yahay wixii cidhiidhiga iyo diiqadda iyo walwalka kugu keenayey ilaahay meesha waa ka saaraya, ilaahay baa kaaga fillaanaya. wa yughfaru dambuk, dembigiina waa lagu dhaafaya, dunuubtaadiina waa lagu dhaafayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam. idan nebiga in lagu salliyo oo salligiisa la badiyo iyaduna waa sabab weyn oo dhibka lagu faydo. waxaana iska wanaagsan qofku markuu ugu yaraado gelinka horena inuu 10 jeer ku salliyo nabiga calayhi salaatu wassalaam, gelinka dambana uu ku salliyo oo nabigu leeyahay ninka hal mar igu salliya 10 baa ilaahay ku sallinaya. man salla calaya waaxida salla allahu calayhi biha 10. oo 10 jeer gelinka hore hadduu la yimaadana waa 100 jeer oo ilaahay adiga uu kugu sallinayo, uu kuu ducaynayo, uu kuu naxariisanayo. gelinka dambana haddaad 10 jeer nebi maxamed ku sallido waa 100 jeer oo ilaahay uu kugu sallinayo, oo uu kuu naxariisanayo, oo uu kuu ducaynayo. 200 oo jeer inuu ilaahay kuu naxariisto, dee qofka noocaasa dee dhibaataba ku iman mayso. faraj iyo fayd iyada ayaa ugu filan. qodobka imsaad baa ku xiga. imsaalu marayna shanaad baynu ka baxna, kii 6aad wey. qodobka 6aad waxa uu yahay waxyaabaha farajka keena waxaa ka mida qofku inuu leeyahay camallo wanaagsan oo VIP khaasa gaara macno weyn ku fadhiya inuu leeyahay. salaadii dee maghrib waa tukanay, cishaha waa tukanaynaa, ummadoo dhan baa tukanaysa, waana waxaad u qiimo badan. laakiin camal aad ku tala gashay oo aan faral kugu ahayn oo aad u qiimo badan oo adiga iyo ilaahay idin dhaxeeya oo gaar kuu ah, camalka noocaasa cid waliba waxay og tahay inuu daacad yahay. camalkaa ilaahay inaan cidna lala wadaajinayn ayaa cid waliba dareensan tahay. ikhlaaska halkii ugu dambeeyey buu ka gaadhay. qofka taa samaynaya iimaan wanaagsan buu leeyahay, waxyaabo badan baa keenaya. camalada noocaasee gaarka ah ee qofku uu qarsanayo ee u gaarka ah, camalada noocaasana waa kuwa badbaadada keena wey. markay dhibaata kugu timaado ayaad alle subxaanahu wa tacaala ku baryaysaa
ilaahayow waadigii ogaa sidaa iyo sidaa inaan sameeyey ilaahayow waadiga og maalin walba hawshaa inaan qabto aad jeceshahay ilaahayow waadiga og habeenkii inaan sidaa sameeyo camalkaasi wuxuu noqonayaa camal aad ku badbaado waa ogtihiin saddexdii nin qisadii caanka ahayd ee nebigu inooga sheekeeyey ee ummadihii tegey ka midka ahaa ee iyagoo socoto ah ayaa roob helay dabeedna waxay ka galeen god bay ka galeen iyagoo ka jirsanaya roobka dabeedna dhagax weyn baa buurtii ka soo dhaadhacday oo ka soo degtay dhagixii wuxuu daboolay godkii ay ku jireen afkiisii buu daboolay cidi kuma oga moobayl iyo dee telefoon lagu hadlana xilligaa lama hayn waa nebi maxamed hortii calayhi salaatu wasalaam waa meel cidla ah waa buur gunteed hoosteedii dhagax weyn baa ku daboolay waxa ay sitaan cunto iyo sharaab dee waxa weeye maalin 2 cisho hadday waddo halkaasay marka dambe ku fidigayaanoo ku dhimanayaan waxay arkeen dhib weyne inuu ku dhacay intay sidaa isu eegeen bay yidhaahdeen maanta waxa keliya ina badbaadinaya waa ilaahay inaynu run u sheegno qof waliba camal aanu ka been sheegin oo acmaasha uu sameeyey uu isleeyahay waa ta ugu qiimaha badan maanta ilaahay ha inoogu baryo mid waliba camal buu xasuustay aad u qiimo badan mid waa kii ku ducaystay in waxa weeye shaqaale inta uu qaatay mushahaarkoodii uu siiyey nin shaqaalihii ka mida oo ay ku heshiiyeen bariis inuu siiyo inaanu isagu qaadan mushqaayadiisii oo uu ka tegey sanawaad buu ka maqnaa wuxuu idhi waxaan qaaday wixii aanu ku heshiinnay bifaraqin min aruz dabeedna waan u beeray buuri midhihii ka soo baxay baan iibiyey waxaan ugu iibiyey lo' baan ugu iibiyey lo'diina waa isdhashay wuxuu idhi sanawaad ka bacdi buu ii yimi wuxuu idhi mushqaayadaydiisii wuxuu filanayaa waxoogaagii beriga ay ku heshiiyeen wuxuu idhi waxaasoo lo'ah iyo beertaa wax waliba ka baxeen intaba adaa iska leh halkaa kala bax ninkii waa u qaadan waaye wuxuu idhi ilaahayow adiga dartaa haddaan sidaa u sameeyey oo ninkii xoolihiisii intaan u ilaaliyey welibana u tarmiyey welibana aan waxba aanan ka khiyaamin ilaahayow adiga dartaa haddaan sidaa u sameeyey ilaahayow naga fayd 3 meeloodoo meel baa laga fayday kii labaad isna camal weyn buu sheegtay wuxuu idhi labadayda waalid ayaan fiidkii caana u soo lisi jiray caanahana iyagaan dhammin jiray intaanan siin ubadkayga habeennada ka miday ila fogaatay waan soo habsaamay buuri labadii waalid oo gaboobay ayaa iga seexday buuri xaaskii iyo ciyaalkiina waa soo jeedaanoo caanay doonayeen ay ku seexdaan way gaajoonayaan buuri yatadaaqawna min aljuuc waa yuus cod marka la bixiyo gaajo awgeed carruurtu ay bixiyaan gaajo awgeed wuxuu idhi waxaan la dul istaagay hadhuubkii labadii waalidoo seexday wuxuu idhi waxaa igu adkaatay inaan caanaha u toosiyo waan idhaahda caanaha cabba oo hurdadii aan ka kala gooyo wuxuu idhi waxa kaloo igu adkaatay taas waa igu adkaatay buuri waxaa kaloo igu adkaatay inaan ka duldhaqaaqo aan isidhaahdo ciyaalkii layagaba caanuhu ugu talagalo caanuu hayey ciyaalka caanaha siisii intay iyagu kacayaan dabeedna ay soo kacaan iyagoo gaajoonayo aan ka soo habsaamo taana waan ka baqay buuri sidaan markii horeba uga soo habsaamay wuxuu idhi saan hadhuubkii ula dul taagnaa aan isu lahaa taloo hadday kacayaan ayaa salaaddii subax laygu addimay buuri oo waagii igu bari ciyaalkiina habeen oo dhan oohin gaajo ay loo ooyayaan ciyaalkii u dhalay cid waliba waxay ogsoon tahay ma aabbahaa baad u beer jilecsan tahay mise kaa dhashay labada waa kii ma aabbahaad u naxariis badan tahay mise kaa dhashay si kale haddaan u dhigo nusuustuma waxay aad inoogu boorisay aabbaha in la wanaajiyo mise ubadka in la wanaajiyo sharcigeennu wuxuu ku dhisan yahay
waxa naftu way iskaga talaalan tahay aad leynoguma guubaabiyo ubadka inaynu u roonaano way nagu talaalanta iyagaynu u badanna sida ogeed aayado badan iyo axaadiis badan oo nagu waaninaya ma jiraan xuquuqdooda in laga soo baxo si guud baa loo sheegaa laakiin waalidku isagoo gaboobay buu adiga ku walwalaya adoo dhaqaale dhaamo oo caafimaad dhaamo oo ka xoog badan oo ka jaanis badan ayuu adiga ku walwalaya laakiin sida uu adiga kuugu walwalayo adigu ugu walwali maysid waxaad ugu walwalaysaa ubadkaaga ugu walwalaysaa marka ninkaas labada waxay ahayd inuu u beer jilicsanaado ubadkiisa taasuu ilaahay ku dabeecay tiibuu khilaafayo labadii waalid buu daneeyey tiina waa lagaga fayday qayb baa lagaga fayday qaybta saddexaad waa ninkii inanay ilmaadeer yihiin ka helay dabeedna damaaciyey inuu ka sinaysto dabeedna ay ku tidhi ilaa aad keento boqol dahaba ilaa aad keento naftayda ku siin maayo ee shaqo tegey ma hayn waayo markaa hadduu qacanta ku hayo waa shubi laha ila markaasuu hungureeyo uu doonayey magaaladuu galo mudduu maqnaa intay ku qaadato allahu aclam laynuma sheegin laakiin mudduu u soo tabcaday gabadhaa inuu boqolka siiyo nafteedana wuxuu ka doonaya inuu ka qaato markuu boqolkii soo helay buu yidhi hoo dabeedna dee waa ballana waa isu diyaarisay markuu dhex fadhiistay labadeeda lugood dhexdooda ayay tidhi ittaqi illaah walaa tafudda alkhaatama ilaa bixaqi bikaray ahayd ilaahay ka baq bakaaradana ha ku jabin xaqiisa mooyaane wax kale xalaal mooyaane wax kale ha igu bikara jabin dabeedna wuxuu idhi ilaahay dartii hadda boqolkiina waa bixi waana wuxuu intaa u soo shaqaysanayay ayaan iskaga tegey buu idhi boqolkiina waan u daayey buu idhi ilaahay dartii baan ugu daayey camal weyn buu ah ilaahay qaybtii ugu dambaysay buu kaga fayday qisadaa waxaanu ka qaadanaynaa ma leedahay maanta culays hadduu kugu yimaado camal wanaagsan oo aad is leedahay wallaahi maanta camalkaasun baan ku anfacaya kaasun baad maanta iibgeyn kartaa oo dhibkan kaa faydaya qof waliba naftiisa isagaa xisaabinaya ragga qaar caliy ibnu alxusein zaynulcaabidiin xaafad iska dhan ayuu habeen walba masaariifta yowmiyahay cunaan ayuu halkaa u soo dhigayay habeen barhka marka la seexdo way la qabsadeen subaxii markay toosaan bay albaabka furaan waa salladan hadda aynu qaadano 10 laana 50 laana hadba inta la biishado ayuu albaabka u dhigaa habeen barhka way qaataan intaasoo sano wada cidimay ogeyn kuwa qaataa may ogeyn haddana dee igu sawir baa iska badanoo haddii shilin yar la bixinayo dhowr tv baa loo yeedhaya lacag kale lagu bixinaya waxaa la ogaaday maalinkii uu dhintay baa la ogaaday gelikii dambaa la aasay habeenkii baa xaafadii iska soo tooseen dabeedna meesha waxba ma yaallaan dabeedna waxay ogaadeen xaajigii dhintay maantee la aasay inuu ahaa halkaasaa lagu ogaaday hawshiina halkaas isku taagtay alcamal asaalix isagana badbaadaa ku sugan marka qof waliba ama salaatuleyl ha noqoto ama sadaqa ha noqoto ee camal kuu gaara maalin kasta qofka hadduu yidhaahdo kun laana masaakiintaa iska wareegaysa maalin walba kun laana baan ilaahay dartii aan cidiilo ogayn baan camal gaara ka dhiganaya iyo cibaado gaara uu samaynaya wixii la mida waa wax dhibka lagaga faydayo ilaahayna uu ku baryayo maalinka waxa weeye loo baahdo qodobka 6 7 waa musaacadatu nnaas dadka in la caawiyo dadka in loo gargaaro dadka waxa weeye in wax la taro nafci gudbaya inaad samayso dadka dhibaataysan dhibka inaad ka qaado kuwa la cusleeyey inaad wax u fududayso iyaduna waa faraj weyn sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi addunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofka qof mu'mina dhib ka fayda adduunyada dhibaatooyinka iyo kurbooyinka aakhiro ayuu ilaahay ka faydaa adduunyadana kurbooyin badan baa ilaahay kaga faydaya qof waxa weeye waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira
ninka u fududeeya qof la cusleeyey ilaahay adduun iyo aakhiro hawlihiisuu u fududeeya ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. axaadiista macnaha ku timi aad bay u badan tahay. waxa weeye masaaricu alixsaanu ila annaas taqii masaarica asuu. qofka dadka u samafala si xun uma dhintaa leeyihi, waayo meel walba waxaa u jooga cid uu u samafalay, ama wejigiisa ha ugu samafalo, ama jeebkiisa ha ugu samafalo, iyo magaciisa, awooddiisa iyo xooggiisa. qofku hadduu dadka u samafalo waxa weeye si xun u dhiman maayo sida laynoo tilmaamay. qodobka 8aad asalaa waa salaadda in lagu dadaalo. markaynu salaad leenahayna dee salaadina waa salaad zero ah oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax saamayna iyo wax ajara inaanay lahayn. waajibka unbaa kaaga dhacaya, laakiin wax saamayna noloshaada ku yeelan mayso. salaaddaynu ka hadlaynaa waa salaad lagu khushuucay, salaad qiimo leh, salaad qofku uu soo jeeda qalbigiisu, salaad uu fahmayo waxa uu ku hadlayo, wuxuu ilaahay kula faqayo, ficilada uu samaynayo. waxa weeye salaadda noocaasa ayaa keenaysa saamaynta keenaysa. ilaahay wuxuu ihi wastaciinuu biالصabri wالصalaaة. waxaad kaashataan salaadda iyo sabarka kaashta. welibana dee kaalmo waxaynu u baahannahay ma markaynu dhibaataysannahay mise markaynu barwaaqaysannahay keebanu aad ugu baahanna? labadaba waa u baahanna, lakiin waxaynu aad ugu sii baahannahay markaynu dhibaataysannahay kaalmada alle subxaanahu wa tacaala. ilahay wuxu uhi waxaad kaalmaysataan oo kaashataan salaadda ha la kaashto. mar kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaatu lkusuuf, marka quraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadku u dhaco waa calaamad weyn, waa imtixaan weyn. wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ila asalaa. taa haddii aad aragtaan waxaad u argagaxdaan salaadda u argagax, xagga salaadda u yaaca oo u argagaxa. nebi maxamedna waa dhaqan geliya calayhi salaatu wasalaam kaana idaa xasabahu amrun afzaca ila asalaa. culays hadduu ku yimaado, dhibi hadday ku timaaddo, nebigu wuxuu u ordayey oo u argagaxayey xagga salaadda, ilaa uu ka gaadhay nebigu inuu yidhaahdo yaa bilaal arixnaa bisalaa. bilaalow salaadda noogu raaxee. salaadda miyaynu ku raaxaysannaa mise waynu ka raaxaysannaayo waynu ka nasannaa? dadka qaar waa maqasha maxay yidhaahdaan waar faralka aynu iska ridno, aynu iska tuurno, haynaga dhaco. waa ninka dad tuurta ku sitoo iska tuuraya wey. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam adduunyada markuu ku dhex jiro, bilaalow salaadda nooqiina aanu ku nasannay, aanu ku raaxaysannay. waxaynu uga jeednaa salaaddu waxay tahay haddii sideeda loo tukado iyaduna waa faraj iyo fayd weyn weeye. qodobka 8aad 9aad waa gabagabo, laba qodobun baa inoo hadhay. qodobka 9aad waa dikrullaahi caza wajal, ilaahay la xuso, ilaahay xuskiisa in la badiyo. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. xuska alle ayay qalbiyadu ku xasilaan oo ay ku degaan. waxyaabaha dhibaatooyinka lagu fayda waxaa ka mid a in horta dhibkiiba uu kuu fududaado, in dhibaatadii aad dhibaatada u arkaysay wanaagba ilaahay uu kuugu bedelo, oo xitaa dhibkii adoo ku sugan inaad ka dareento nicmo. qof baa waxa weeye ilaahay araggiisa ka qaado, waa imtixaan weyn. nabigu wuxuu yidhi qofka labada indhood laga qaado ee ku sabra janna loogu bedelaya. waa ibtilo weyn, waa imtixaan weyn wey. laakiin markii indhihii laga qaaday buu masjidkii galay, cibaado u baydhay, xumaan ma arkayo, xagga filimada xunxun laga daawanayo maba arkayo, dumarkii qaaqaawaanaya suuqa maraya ma arkayo. waxaa buu dareemayba macaan iyo iimaan. waxa weeye iyaduna waa faraj iyo fayd alla subxaanahu wa tacaala dhibka uu kaaga faydayo. qodobka 10aad
waxa uu yahay biru lwaalidayn labada waalid in loo samafalo labada waalid in laga ducaysto waayo markaad u samafasho ayay kuu ducaynayaan si kaliya laaba qofku markuu meel fiican gaadho ama xaaladihiisu isku toosaan waxay dadku yidhaahdaan waalidkii baa u duceeyey ducaa ku dhacday ducaa la socota haddii imtixaanaadku ku bataanna waxaa la odhanayaa waalidkii baa habaaray baa la odhanaya nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay cadhadiisu waxay ku jirtaa cadhada waalidka raalli ahaanshihiisuna wuxuu ku jiraa waalidku inuu ka raalli noqdo wax sahlan maaha idan waalidka in loo samafalo in la wanaajiyo in laga ducaysto waa furo weyn oo lagu helayo faraj lagu helayo ayuu noqonaya qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabaynayaa waxa uu yahay adducaa in alla subxaanahu wa tacaala la baryo in la ducaysto in ilaahay laysu bihimbihiyo falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu ilaahay waxa uu yidhi markii dhibaatada yadu ay taabatay hadday annagay sukaaya bihinbihin lahaayeen oo na baryi lahaayeen yacnii dhibka waannu ka qaadi lahay xilliyada qaar ilaahay wuxuu doonayaa inuu kuu soo celiyo xaggiisa inuu ku xasuusiyo inaad u baahan tahay inuu kugu baraarujiyo baryadiisa oo aad dareentay markaa caafimaad iyo masaariif iyo axwaash isugu kaa toostay in laga yaababa qofku inaanu ducaysan oo uu yidhaahdo alxamdulilah ilaahay waa ii nicmeeyey waxba uma baahni taasina ilaahay waa cadho gelinaysaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam man lam yas'al illaah yaqdab calayh qofka ilaahay aan waxba weydiisanee ka kaaftooma ilaahay waa u cadhoonaya bini aadamku in wax la weydiista waa ka cadhoonaya ilaahayna in wax la weydiisan waayuu ka cadhoonaya wuxuu doonayaa in wax la weydiisto marka wuxuu ku imtixaamayaa inaad ilaahay barido oo aad ducaysato ducooyinkuna waa ducooyin caama oo dee qofku si guud uu ducaysanayo ama uu ku ducaysanayo dhibkii haystay ilaahay inuu ka qaado oo haddii faqri hayay ilaahay faqriga iga qaad haddii ubad la'aan ay haysatay ilaahay ubad wanaagsanaysi inuu ku ducaysto waxaa kaloo jira ducooyin nabigu inoo sheega calayhi salaatu wasalaam oo loo yaqaana adciyatu lkarb qofka dhibaataysan la doonaya inuu ku ducaysto qofka hayaana waa hayaa waa inuu markastoo dhibaata ku timaadaba ilaahay uu ku baryo qofka waxa weeye aan aqoonna inuu ducooyinkaas xisnulmuslimka iyo kutubta adkaartana waa laga helaya inuu xifdiyo oo marka dhibiba ku timaadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isu bandhigo marka afar ducooyinku waa badan yihiin ayaynu insha allahu tacaala si gaara isu xasuusinaynaa oo aynu u tilmaamaynaa insha allahu tacaala ducada koowaad wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya asmaa binti cumays radia allahu tacaala canha wuxuu ku yidhi nabigu asmaay ma ku baraa kelimaad iyo ducooyin kurba hadday kugu timaaddo aad ku ducaysanayso haabay tidhi nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allah allah rabbii laa ushriku bika shay'an allah allah yaa allah yaa allah ilaahayow rabbii yaa rabbi rabbigayow ama anta rabbi rabbigay baa tahay laa ushriku bika shay'an baryadaadana cid kale la wadaajin maayo keligaa baan ku baryayaa kuu cibaadaysanayaa ilaahayoo dhibkayga fid taada ku darsanaya laakiin inta lagu celcelinaya waa intaas allah allah rabbii laa ushriku bika shay'an ilaahayow rabbigayow cid kale kula wadaajin maayo dabadeedna kurbadii markaa kugu dhacday alla subxaanahu wa tacaala waa kaa faydaya ducada labaad waa ducadii uu ku ducaystay nabiyullaahi yuunus calayhi salaam
النبي يقول الدعوة ذي النون وحوي كي نمرق وصاحبك ويونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى حق لقو عابدا مجر إلهي موياني سبحانك حمان وردن إلهي وأذاك النزهن وكفك نقصاني عيب وردن أذا كفك إني كنت من الظالمين كو نفهد الظلمية بان كمده وحوري النبي قف مسلم كمد عيسته إلا إلهي وكا أجيبه وكا أقبله وكا كربا هديك قلت معده قد نبي الله يونس markii nimirigu uu liqay calooshiisa uu galay buu ku ducaystay oo musiibadaasi ay ku timi ayuu ku ducaystay ilaahina waa ka badbaadiyay waxaana halka aad ka arkaysaa tawxiidka kalimatu tawxiid saamaynta ay leedahay laakiin yay anfacda nabiyullaahi yuunus markuu sidaa leeyahay dhibaatadaasi ay ku timi wuxuu ahaa nin hore ilaahay ugu xidhan oo nebiya oo ilaahay xusa oo muwaxid ayuu ahaa وينفع لكن نكي فرعون لورني مركي بدو اللي قضي محويري قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وإسلا كلمة التوحيد إلى حق لقو عابدا مجره أنكاها إنكي بنو إسرائيل أي رميين والله ما ينفعين ويدهروا إلهي الضفر بل إلهنما وشاكت وحبا أميترين markay kurbooyinku imanayaan ee aad ducaysanayso waxa ka qayb qaadanaysa xaalkaagii hore ka qayb qaadanaysa xilligii barwaaqada ee dhibaatadu aanay kugu iman hadaad ilaahay ku xidhnayd codkaagu cod la yaqaanu noqonayo oo la garanayo hore loo maqlay oo malaa'iktu xitaa ay oranayso waa cod aan hore u maqli jirnay min hore ilaahay u bari jiray buu nabiguna waa inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي واحد برتا حلق برواقضة حلق الدباتدو إلهي كو أبا القذية ودبك كاقاضية دعاء صديحات وتيو النبي كت المامي كلمات المكروب أما الدعوات المكروب كلمدها أما الدعوين كقفك الدباتي سنئو أرنيا وأكون صعدة اللهم رحمتك أرجو إلهي ونحريست هذا فلانيا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين إلهي ونفت إذا هاي تلصارا البرقس وحلك نفت إذا هاي قسيدين أي أذوق تلض إذا هاي بدبادة إذا هاي نفت إذا هاي قسيدين أصلح لي شاني كله أحواش شيء وردن إلهي وإيواناجي لا إله إلا أنت إلى حق لغو عابدا مجره إلهي موياني تاسينا waa ducooyinka qofka dhibaataysan u gaarka ah marka ducooyinka caamka laga yimaado اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت مدير من بدنا كوغو دبي النبي ينوشي عليه الصلاة والسلام اللي يقان الدعاء الكرب ولا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ودمان تدايتهاي كلمات التوحيد إلى حق لغو عابدا مجره أنكاهين الله وين أدلقات كبضا إلى حق لغو عابدا مجره aan ka ahayn allaha u saaxiibka carshiga weyn u saaxiibka ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro aan ka ahayn allihii samaawaadka iyo dhulalka rabbigooda ahaa carshiga karaamada leh ama sharafta lana allihii rabbigiisa ahaa oo dee looga jeedo allaha inaad u eeranayso xaggiisa u noqonayso isaga dhibkaa kugu dhacay aad u celinayso si alla subxaanahu wa tacaala uu waxa weeye kaaga faydo furayaasha 10 ama 11 haddii aynu dhaqan gelinno
markay imtixaan inagu yimaado musiiba inagu timaado alla subxaanahu wa tacaala farajkeedu inoo furaya adduunyadana dee saynu bilowgii sheegnay imtixaan kama madhna waa laga yaabaa qaarna inaynu dareensannahay qaarna inaynaan dareensanayn mid baa wuxuu ka cabanaya ubad la'aan waa dhib iyo imtixaan asaagiyo ubad leh ayuu arkayaa dhib buu dareemayaa waa kurbo mid baa ubad la siinayaa laakiin ubadkii baa lagu sallidaya uu khaati ka istaagaya oo ku soo jeesanaya oo waxa weeye ku xumaanaya waa musiibo waa kurbo waxa weeye kurbooyinkaasoo dhan waxay ka mid yihiin saynu soo tilmaannay adduunyaday ka mid yihiin waxaan kaga baxayaa dadka qaar baa dee waxay u ordayaan adduunyada inay ka waayaan wax imtixaanaya ibtilaa oo waxa weeye u ordaya xaalad walba inay farxad ku jiraan iyadoo alla subxaanahu wa tacaala aanu sidaa ka dhigin nin ka mida boqorradii amawiyiinta alkhulafaa alamawiyiin oo dee caalamulislaami markaa dunidoo dhan wixii muslim meeluu joogaba ayuu u talinayay hantiyo dhaqaalena waa hayay wuxuuhi waxaan doonayaa maanta wax cidhiidhiya iyo wax diiqada inaanan dareemin wuxuu idhi buur dusheed waa meel buura dusheeda buu idhi guri ha layga dhiso maalin baan doonayaa inaan soo joogo cuntooyinkaan ugu jecelahay waa nooca iyo nooca ha lagu goglo xaasas badan iyo addoommo badan oo boqolaaloo kala duwan oo jinsiyado kala duwana oo addoommaana waa lahaa tii uu ugu jeclaana wuxuu idhi ha la ii geey cidna yaana ii soo geli dee buur baa buu saaraya hoostana dee ciidan baa jooga cid u soo gudbi mayso wax hawla dunidu hadday rogmanayso caasimadda haddii la soo galo waxba yaan layla wadaagin wuxuu doonay maalinkaa labadeeda gelin farxad inuu ku noolaado cuntooyinkii iyo goglihii iyo wixii markuu isku habaystay ayaa inantii uu jeclaa ee uu boqolaalka ka soo xushay ayuu idhi ii qaad heese iyo buraanbur iyo wax ii qaad ilaahay baa u xalaaleeya aw maa malakat aymaanuhum weeye ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum markay xoogaa isaguna khudaartii uu cunayo iyaduna ay u haysayso oo labiskii ugu dambeeye ay xidhan tahay quruxdeeda iyo codkeeda macaan uu ku raaxaysanayo uu isleeyahay waxba kaama maqna ayaa leeb meeluu ka yimi aan la garanayn intuu daaqadda ka soo galay buu dhuunta ka galay isagoo eegaya halkaasuu isku tagay iyadoo aan cidila joogin bay hortiisii ku dhimatay gabadhii uu dadka ugu jeclaa dabeedna wuxuu ka toobad keenay adduunyo aan lahayn waxa weeye walwal iyo diiqad alla subxaanahu wa tacaala awooddiisuu tusay markuu doonay adduunyo isku toosan oo aan wax cidhiidhi iyo diiqad iyo walwal lahayn 24 saacadood inuu ku noolaado xaalad wanaagsan ayuu alla subxaanahu wa tacaala xasuusiyey min xayثu laa yaxtasib meelaanu wax ka filanayn xaqiiqada adduunyada in la tuso adduunyadan dhib kama madhna laakiin dhibkan wixii laga gudbayey waa waxa aynu sheegnay insha allahu tacaala ay ugu muhiimsan tahay alla subxaanahu wa tacaala in lagu xidhnaado isaga loo noqdo la baryo loo cibaadaysto inta aanu dhibku imanna alla subxaanahu wa tacaala lagu xidhnaado ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi wakhti allaaliyo wakhtiga jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada islaamka waa madarasatul qur'aan online oo ay ku joogaan macallimiin aqoon u leh haddaba haddaad doonayso kala xidhiir taleefanka shaashadda idinka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysanno dugsigan madarasatul qur'aan online